waa ciyaar aad u xiiso badan, waa kulan friendly ah. Waxaa isku baxay FC Dream, waa kooxda riyada ama akoryoti, waa kooxdigaad abuuratay ama created. Kooxda kale aan u bixi doono kulan friendly ama kulan saaxiibtinimo waa Crystal Palace. Shaxda haddaan eego Dream FC waxaa soo galay garoonka Matthews, John Alaba, V Company oo FC oo kabtanka ah. Wuxuu ciyaari jiray kooxda Man City, wuxuu ku soo wareegay kooxda FC Dream, waa koox iska riyada ah. Sidoo kale CB daafac sidoo kale Wilson, Neymar oo ka ciyaaraya garabka, Neymar iyo waxaa garabka ciyaaraya Theo Walcott. labada garab Isco, Dani Silva, Imar waxay isla wadaagayaan qadka dhexe. Weerarka toos waa Disoko. Kooxda kale ee Crystal Palace hadda Portier waa Hinisi Portier la leeyahay, sidoo kale Soa, Clooney, Joa, Zaha, Pai, Sako, Firmini iyo Pichon iyo Panteko oo weerarka ciyaaraya. Iyadana labada garab waxaa ugu ciyaaraya ninka loo yaqaano Saha, iyo waxaa ugu ciyaaraya labada garab iyo ninka la leeyahay Ponchion. Weerarka tooska waa Panteka. Qadka dhexe waa Sako, waa Kapai, Jo daafacyaduna waa soo dhibnay James. Haddana waxaan u bilaaban doonaa ciyaarteyna tooska. Garoonka waxaa ka da'aya roob aad u culus. Roob ayaa da'aya garoonka. Weerar ayay wadaan Crystal Palace, kooxda riyada. Neymar Junior, Johnny Alba ayuu kubadda siiyay. Alba ayuu kubadda siiyaa, waa taagan yahay Johnny Alba. Waa laga qaatay Dani Silva ama ciyaaryahankii hore ee kooxda Man City. Waa uu ka qaaday Company. Isco ayaa kubadda wata, Disoko ayuu ku xiray. Theo Walcott waa laacibkii hore ee Arsenal. Waa kooxda riyada. Kooxda riyada ama FC Dream ayaa wadata kubadda cagta. Kubadda Neymar Junior ayaa wata. Disoko, Iska ayaa dhexda baashaalaya ama santarka ayaa isla wadaagaya. Iska ayaa maamulaya kubadda cagta. Silva ayaa kubadda wada. Theo Walcott ayuu kubadda ku xiray. Again Theo Walcott cross, waa laga difaacay Isco. Ciyaartu waa 0-0 ama sa u taqaanid ciyaartu waa ever. Kubadda weli Crystal Palace ayaa wadata. Crystal Palace kulanku waa kulan saaxiibtinimo ah. Kulanku waa kulan friendship ah. Cross ayuu soo qaaday, waa uu ka badbaadiyay. Neymar Junior ayaa kubadda laga qaaday. Neymar Junior cawada si fiican uma ciyaaraya. Waa laga dhaliyay kooxda Dream ama kooxda riyada FC Dream. Gool ayaa laga dhaliyay. Goolkaas ayaa ka siixay ciyaaryahanka loo yaqaano Saha. Waa gool aad iyo aad u cajiib badan. Kubad uu Panteka ku gaacay Portieriga ayaa waxaa marka labaad ku cishay wiilka yarka ee Saha ee u dhashtay. Wuxuu ka qayb galay oo u soo baxay koobka adduunka iyo sanadkan Africa Coast ayuu ciyaarayay. Sababtoo ah ma aysan soo gaarin meel fiican. Wali asiga ayaa baashaalaya wiilka yar ee Saha, da'diisa lagu qiyaaso
si fiican uma ciyaarayaan kooxda Dream waxay wataa ciyaaryahan halis ah waxa qadka dhexe ka wada ciyaaraya wiilka hore ee Real Madrid Isco weerarka waxa ka wada ciyaaraya Walcott Sissoko Neymar qadka dhexena waa Iska Dani Silva Maria kulanku waa kulan adag kulanku waa kulan xiiso badan ciyaartu waa eber ciyaarta weli farka ma qodna ciyaarta weli way kulushahay kubad fiican ayuu qasaariya wiilka yar ee Sissoko ee u ciyaar jiray kooxdii hore ee Roma waa wiilkii hore ee Man City ee uu yaqaan jiray xilliga Premier League ama 2013 2014 wixii ka dambeeyay ay qaateen kooxda FC Roma ee la soo wareegeen weeraryahan kacanka ee loo yaqaano kun Aguero oo ku naqaano 5 dhaliye 6 dhaliye 8 dhaliye waa ciyaaryahan aad u fiican waa ciyaaryahan aad u khatar badan garoonka marka uu ku jiro oo aad ka fil kasto wax kasta oo garoonka sameey karo sida Lionel Messi Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahanno aad ka fil karto marka ay garoonka ku jiraan inay sameeyaan wax kasta kubad ma aysan ciyaarayaan wiilasha yar ee Riyada ee FC Dream waa ciyaaryahanada u ciyaaraya Crystal Palace iyo ciyaaryahanada u ciyaaraya isma lahan Wales Company ama wiilka hore ee Man City ayaa aad uga difaacaya kooxdan sidoo kale Portieri waa uu dadaalayaa kubadda waxa qaatay Neymar waa laga dafay Neymar ma ciyaaraya ma oge macalinka waxa uu garoonka ku haya wali ciyaartu way soo dhamaatay ciyaartu waxay ku gabootay hal iyo eber waxaana ku badisay kooxda Crystal Palace man of the match ka waxa qaata wiilka loo yaqaan Saqo ayaa kubadda fiican dhigay sidoo hore kooxda FC Dream ama kooxda Riyada boqolkiiba 45 ay heleen halka kooxda loo yaqaan Crystal Palace ay heshay markii la sameeyay ama bushishinkii ama baasaskii ama waxay garoonka ka hayeen ee noqota boqolkiiba 55 halkaas ay waxay ku dheereen 15 Crystal Palace ayaa fiican dhinaca bushishinka marka aan qiimeynay sidoo kale aan imaana total shootka halka FC Dream ay ku riday hal darbo oo on target ah halka kooxda loo yaqaan Crystal Palace ay ku riday 2 target ama 2 shoot oo xoog badan kooxda loo yaqaan FC Dream may saridin wax target ah halka ay riday Crystal Palace 2 shoot oo target ay goolka ku aadisay halka koornada ay heshay kooxda Crystal Palace hal koorna halka ay FC Dream ama kooxda Riyada aysan helin wax koorna ah baasaska ama complete ee dhameystireen labada koox ee Crystal Palace FC Dream halka Dream ay heshay baasaska ama ay dhameystireen boqolkiiba 77 halka ay heshay baasaska ama dhameystiran kooxda Crystal Palace halkaas ayaa waxa ku dheer FC Dream sidoo kale fawliska ee labada koox ay wada galeen labadooda waa 0-0 ama waa eber wax foul ma aysan galin labada koox yaa roose qaatay bahalka loo yaqaan yelowga labada qayb maxba kaarmaysan qaadan cagaar ma qaadan guduudna ma qaadan halkaas ayaa man of the match waxa ku qaatay halka cunuga loo yaqaan ama wiilka yar ee dhaawac inta badan ku maqan ee loo yaqaan Bakary Saqo waa wiil yar oo ka yimid kooxda hore ee loo yaqaan hadana qaldaneen Liverpool Bakary Saqo waa ciyaaryahan aad u khibrad badan waa ciyaaryahan inta badan saameyn karto ama loo yaqaan waa ciyaaryahanada ku ugu difaaca qatarta badan oo aad ka filkato wax kasta inay garoonka sameeyaan waa ciyaaryahanno aad marka aragto ay isku yiraaqdo ama ku riyaaqi karto sidoo kale man of the match waxa cabada ku guuleysay wiilka loo yaqaan Bakary Saqo kulanka wuxuu friendly muusan ahayn kulan aad u adag wuxuu kulan saaxiibtinimo ay labada koox iska hor imaadaan
halka ay san si fiican u ciyaareen kooxda loo yaqaan FC Dream ee ka wada ciyaarayeen weerarka Theo Walcott sidoo kale Neymar ee labada garab kala saarnaayeen sidoo kale weerar toos ku ahaa wiilkii hore ee Man City ama ee loo yaqaan Sissoko kaasoo inta badan ka sugaya labada garab inay caawiyaan maysan wax fiican garoonka maysan ka qaban tababaraha ee kooxda FC Dream ayaa wax uu sameeyay wax bedel wuxuu ku kalsoonaa labada garab ama sida loo yaqaan Theo Walcott iyo Neymar Jr waxaad ka dareemaysaa in ciyaartaas laga bixin labadoodaba ciyaarta wax saas weyn maysan ka haynin garoonka dhexdooda waxa idin leenahay asxaabta oo thanks waad mahadsantihiin fadlan please subscribe ka la saaro YouTube kan waxa loo yaqaanaa Love Stars waxidigaha jacaylka waxidigaha ama waxaad ka dhigi kartaa Love Football waxidigaha kubadda cagta ama kubadda jacayl waxa idin leenahay habeen qurux badan maalin qurux badan is aragti wanaagsan